aan ku bilaabay madax ka tirsan dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya iyo madaxda Puntland ayaa si wada jir ah uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland General Cadde Muuse Xirsi. warbixintani waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Cabdi Shire. Allah u naxariistay aaskar qaran ee aadka u ballaaran ayaa maanta loogu sameeyay qabuuro ku yaala Boosaaso marxuum General Maxamuud Muuse Xirsi Cadde Muuse madaxweynihii labaad ee soo maray Puntland. madax ka tirsan dawladda Soomaaliya Puntland isimo madax ka socotay dawlad goboleedyada qaar iyo boqolaal qof oo Soomaali ayaa goobjoog ka ahaa aaska marxuumka oo muddo la soo agaasimayay. marxuum Cadde Muuse ayaa 8 bishan ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxaana meedkiisa ay diyaaradiisa ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyadoo ay si deganaan u soo galbiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee BSF-ta. waxaa markii dambe ku soo biiray wufuudda madax ka timid magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha ee wadanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wasiiro xildhibaano iyo waxgarad kale qaar ka mid ah simada Puntland oo goobta ka hadlay ayaa tacsi tiiraayala u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum General Cadde Muuse oo ay ku tilmaameen qof shakhsiyad wanaagsan. ilaahay waxaan u weydiinaynaa ilaahay uga baryaynaa marxuumka in ilaahay jannadii fardowsa uu geeyo ilaahay inuu u dambi dhaafo ilaahay inuu naxariistii janno siiyo innagana ilaahay bacdigiisa inuusan ina fidmayn dhammaanteen dariiqaasaynu wada maraynaa dhimashada waynu ku wada xukumannahay ilaahay baa inagu xukumay kullu nafsun daa'iqatulmowt. waxaan u baraynaa inuu nin wanaagsan ahaa nin oday uu ahaa nin wuxuu ahaa run ahaantii daacada qofka dhintay waa in wanaagiisa la xuso iyo siduu ahaa markuu noolaa u tacsiyadaynayaa intuu ka dhintay ama islaamtinimada ama ehelnimada ama odaynimada uu ahaa waa uga tacsiyadaynayaa samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. nin nabadda jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin geesi ah oo laba ciidan oo maxaa la yiraahdaa dagaalamay intuu isu keenay gacanta isu saaray ayagoo cid dhexdhexaadinaysa aan jirin. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha ee wadanka Mawlid Xuseen Guhaad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore dawladii ku meel gaarka ahayd Cali Maxamed Geedi ayaa iyaguna tacsi la wadaagay dhammaan qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday marxuum General Cadde Muuse. runtii hadda wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed markasta daneeye labadii mar oo aniga mas'uuliyadda aan qaadayna runtii markasta tala iga siinayay habka dalkan ugu soo celin karo nabadiisa iyo wanaagiisa waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay jannada raxmada ilaahay ka waraabayo. waxaan ilaahay uga baryayaa anoo ku hadlaya 329 baarlamaanka qaranka ah golo shacab iyo aqalka sare in ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba ka gudoomaan tacsida walaalkeen gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa maamulka waxaan leeyahay Puntland ama dawladda Puntland waxaan tacsi u dirayaa dhammaan inta uu ka dhintay gaar ahaan dawladda iyo shacbiga Puntland sidoo kale dawladda Soomaaliyeed saraakiishii oo ka mid tahay xoogga dalka Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa maamulkii uu hogaamiyay ee Puntland sifaadka ay ku sheegeen intiiga horreysay oo dhan ayuu leeyahay ilaahay jannada ka waraabiyo. ugu dambeynna madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadalka lagu soo dhaweeyay ayaa sheegay in marxuum Cadde Muuse uusan ka dhiman qoys gaar ah ama cid gaar ah balse uu ka dhintay Soomaali oo idil qoys gaar ah kama dhiman Cadde dabcan ehelay iyo qaraabo iyo family reer intaba uu rahaa
iyagana waa u tacsidayna ilaahay inuu samriyo iimaan ka siiyo dhimashadiisa annagoo ogda inuusan dhammaanteen naga wada dhintay cid gaara iyo qoys gaara uusan ka dhimanin marka intaasaan kusoo gabagabaynaya insha allah allah u naxariisto jenaraal cadam muuse xirsi nin wuxuu ahaa taariikh leh nin wuxuu ahaa caana nin nabad jecel buu ahaa nin wanaagga ka taliyuu ahaa nin hadalkiisu cad yahay buu ahaa ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo waxaan halkaan uga gudbinayaa fariin madaxda kale ee Soomaaliyeed hal lagu quusto waxa weeye waa u jeedaan maanta madaxweynaheenni isaga idin la midka ahaa maanta inuu waxa weeye adduunka ka tagay maamulka intuu xukunka hayay iyo cadaaladiisa iyo sidoo ummadda ula dhaqmayna waa waxa uu qabriga la galay halkan waa qabuuro masaafo dhow jira garoonka diyaaradaha ee Boosaaso halkan ayaana loo asteeyay in lagu aaso Allah u naxariistay marxuum jenaraal Cadam Muuse aaskiisa waxaa ku sugan mas'uuliyiintaasi kala duwan ee qaarkood saacado ka hor ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso aaska ayaana ugu dambeyntii halkan laga soo gabagabeeyay iyadoona halkan salaadii janaasada ay ku tukadeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore dowladda federaalka ahayd Dr. Umar Abdirashiid Cali Sharmaake Yusuf Abdi Shire wararka telefishinka SBC agagaarka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso